daawadayal wardegdego naxdin badan dalka Turkiga waxaa ka dhacay dhul gariir gaar ahaan magaalada Bursa ee waqooyi galbeed dalka Turkiga sidoo kalena magaalooyin kale oo ku xiran ayaa dhul gariirka sidoo kalena laga dareemay waxaa kamid ah magaalooyinka waaweyn Istanbul iyo sidoo kale Janna kale iyo magaalooyin kale oo halkan idinka muuqda dhul gariirka ayaa waxaa lagu sheegay cabirkiisu inuu ahaa 5.1 sida ay markaasi warbaahin kala duwan ay ku qorayso mareegaha baraha internetka dhul gariirkan ayaa waxa uu dhacay saaka subaxnimo hore oo isniin ahayd saacadu markay ahayd 10:45 guud ahaan waxaa laga dareemay magaalada Bursa xilligaas oo ahayd xilligii dadku ay shaqooyinka galeen si la mid ah ayaa magaalada Istanbulna dhul gariirka looga dareemay haddaba hay'adda aafaad oo arrintan ka digtay ayaa waxay sheegtay in dhul gariirkani uu ahaa sidaan idinku soo sheegaba 5.1 balse wax war oo ku saabsan wax dhimasho ah lama soo sheegin dhul gariirada noocan oo kala ah ayaa sanadkan 2023 si weyn looga cabsi qabay inay guud ahaan dalka Turkiga qayb ka mid ah ay ka dhacaan waxaan la soconay in dhawaan ay ahayd in dhul gariirkii ugu khatarta badnaa inta la og yahay inuu ka dhacay gobolada markaasi koonfureed ee dalka Turkiga gaar ahaan gobolada markaasi Kahramanmaraş, Malatya, sidoo kale Gaziantep iyo sidoo kale gobollo kale balse dhul gariirkaas waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa dhul gariirkii uguna naxdinta badnaa dadkii ugu faraha badnaana ay waqti xaadirkaasi ku dhinteen daawadeel waxaan idin daawadsiin doonaa muuqaalo laga soo ururiyay dadku siday uga falceliyeen markii uu dhul gariir ku dhacay saaka subaxnimo hore oo isniin ahayd 10:43 ilaa 45 daqiiqo muuqaalkana ila daawado nerede olduğu, deprem nerede olduğu önemli. Yani Avşa civarında olan depremler ise farklı yorumlamak gerekir. Kaf'ın yani Kuzey Anadolu fayının üzerine denk gelmeyen bir bölgede ise bu anlamda yorumlar daha farklı olabilir. Çünkü güney tarafında, Marmara'nın güney tarafındaki faylara ilişkin depremleri başka türlü değerlendirmek gerekir. Peki sormak isterim size. Şimdi hangi fay neredeyse tehlikeli, neredeyse değil diye sormak isterim size. Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Şöyle tabii. Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi'nin içinden geçen kuzey kolu üzerinde ise bu tabii ki şöyle bu zon aktif bir zon. Yani burada gelecekte bize zemin de kötüyse çok fena hissetmişlerdir. Bir yanda şimdi açıklamayı ekranlara getiriyoruz fakat AFAD'ın yaptığı açıklama. Biz şu anda olan depremi konuşuyoruz. Evet, kirli bilgileri bu konuda inanılmaması gerektiğine ilişkin. Peki şimdi sanıyorum şu anda evet deprem... maran xiriir kooban la sameeyay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee Bursa Yusuf Barre ninka lagu magacaabay waxa uu sheegay in xaaladdu waqti xaadirkan degan tahay daawadeel wixii ka soo kordhay dhul gariirkan ka dhacay Bursa sidoo kale gobolada ku xeeran ba halkan dib soo gelin doona adiguse haddii aad goboladaas aan sheegay joogtid wax dhul gariirkaas ku saabsan oo aad markaasi dareentay ma jira fadlan commentiga hoose noogu rib wana maasantiin magacayguna waa Cabdulnadar muuqaalkana sii share gareeya السلام عليكم معميشينا شرفت له وانيغو علي دورانا oo ku sugan xarunta Duraan Center maanta waxa halkan ugu talagalnay jaaliyadeyna qaaliga Soomaalida iyo jaaliyadeyna Itoobiyaanka deeq ka timid qaybta sigoortaha oo 100 sigoorto ugu talagalnay ardaydeena ku sugan wadanka Turkiga wixii faahfaahinah kala soo xiriira telefoonada shaashada ku qoran